بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله داود يال أدونك مركز صوت جوكتان السلام عليكم ورحمة الله waxaan jeclahay inaan caawan ila wadaago saddex arrimood oo muhiima dadkeena ku nool bariga amba geeska Afrika arinta koobaad waxa weeyaan walaalayaal arrin ku saabsan qaraxyada ka dhacay dalka Soomaaliya waxaan aad iyo aad uga xumahay qaraxii culusaa ee ka dhacay magaalada Kismaayo ee keensaday inay dhintaan dad aad u fara badan oo walaalo ah oo Soomaaliya oo muhiim ah oo ay ka mid ahayd gabadhii nala deganayd dalkan Canada hodan iyo odaygeygii amba zawjkeygii iyo dhammaan dadkii meesha ku dhintay oo dhan waxay ahaayeen dad muhiim ah arintaas waxaan jecelahay inaan kelmad ka idhaahdo iyo qaraxii labaad ee ka dhacay magaalada Muqdisho ee dawladda hoose ku dhacay arintaas waxaan jecelahay inaan kelmad ka idhaahdo arinta labaad waxaan jecelahay inaan kelmad ka idhaahdo in arrin ka socota dalkayaga Djibouti oo baryahan dambe ku badan sheekada bulshooyinta needka dhexdiisa oo dhex socota dhalinyaro isbedel doona oo ugu horeeyo ninka la yiraahdo Fahmi oo dhalinyaro wanaagsan ah oo la socdo ninka Faahiya la yiraahdo iyo Warsamo Loora iyo dadka kale ee ka dambeeya oo dhamaantoodba iyo rag maamulka Djibouti haya buuqa yar ee dhex socda inaan isla kelmad yar oo kooban ka idhaahdo iyaan jecelahay arinta saddexaad waxa weeyaan inaan kelmad ka idhaahdo dalka Ethiopia isbedel xoog la ka socda gobolada qaar ciidamadii baa la wareegay mar hore magaalada gobolka Amxaarka waxa ka dhacay tawrad iyo isbedel way fashilantay magaalada Addis Ababa nabadu ma suubano magaalada Dirdhabe xiin iyo buux baa ka jira waxa weeyaan hoosta waxba karsamaya korna waxba dul yaala marka arintaasna inaan kelmad ka idhaahdo iyaan jecelahay marka waxaan ku bilaabayaa sida ay isku daba yaaleen baan arinta u soo wadaya waxaan ka soo bilaabayaa arinta Soomaaliya waxa weeyaan walaalayaal Soomaaliya waxa jira dad cadow ah oo rabin inuu ka dhaco isbedel dad cadow ah oo waxa jira rabin inuu ka dhaco deganaan waxa jira dad cadow ah oo diidan inay dawladda Soomaaliya labada mijood isku taagto waxaa jira dad cadow ah oo dawladnimada Soomaalida ku cadow ah su'aashu waxa weeyaan amba diid amba doon waayo cadowgaasi iyo kuwa Soomaaliya cadow maanta waxaan inii sheegayaa daraatoole maqaal aan soo dhigo Carabi ku qornaa baan in yarnii Soomaaliyeynaya waxaa jira cadowga koobaad ee Soomaaliya waxa weeyaan dalka Sacuudigu Soomaaliya wuxuu doonayaa inay noqoto meel timir lagu qaybiyo sadaqad lagu qaybiyo ay dawladda ka dhalan dalka Imaaraadku wuxuu rabaa inuu isticmaalo xoolihiisa siyaasadeed dalka Qatar wuxuu isticmaalaa dawlad hoose oo u qarsoon waxa weeyaan Djibouti waxa isticmaashaa dad ay u bixisay asxaabta Djibouti igaad waxa isticmaashaa ciidan iyo ujeedooyin gaar ah waxaas oo dhan Soomaaliya cadow bay ku yihiin mid la walaal ah Soomaaliya ma jiro Soomaaliya carabtu ma rabaan Soomaaliya geeska Afrika laga ma rabo cadowga koobaad ay Soomaalidu leedahay waa kuwa hadii aad garan weydiin siyaasiyiinta reer Soomaaliyeed ee wasaaradaha arrimaha dibadda mishaarada ka qaata Nairobi wasaaraddeeda arrimaha dibadda rag baa mishaar ka qaata Djibouti wasaaradda arrimaha dibadda iyo mukhaabaraadka Djibouti rag baa mishaar ka qaata wasaaradda arrimaha dibadda Ethiopia rag baa mishaar ka qaata wasaaradda arrimaha dibadda iyo mukhaabaraadka Suudaan ee burburtay dad baa mishaar ka qaadanayay wasaaradda arrimaha dibadda ee wadano kale oo fara badan dad baa mishaar ka qaata dadka mishaarka qaadanaya ee Soomaaliyeed waxay u shaqeeyaan cadowga Soomaaliya burburkeega kuwaasa ka shaqeeya qolada labaad ee Soomaaliya aan ogoleyn inay ka dhalato dawladii waxa weeye waa maalqabeennada jecel inay ku sii dhargaan ku sii lacagaystaan maqnaashaha dawladnimada Soomaalida walaalayaal ninka maalqabeenka ah waa loo baahan yahay dahabshiil maalqabeen weeyaan maaragtay barakaad odagiisa meeya xaajiga Djibouti degan waa mushtar weyn ragaas waxaan uga baahanahay inay ka qayb galaan dhismaha dawladnimada oo ay dawladdu noqoto wax aanan laga maarmi karin arinta labaad waa taa walaalayaal qolada saddexaad ee dawladnimada la dagaalanta waxa kamid ah walaalayaal waa shabaab xarakatu shabaab waa cadowga dawladda Soomaalida xarakatu shabaab rag ba abuuray waxay rabaan in aynan oran annaka abuurnay waa inay yiraahdeen ragga wadaadada ah hadday qudbiyiin yihiin iyo hadday i'tisaam yihiin iyo hadday qeyrkoodba yihiin inay dhahdaan annaka shabaab waa naaladii aan dhalay waa beedkii aan dhalay
marka sidaa daraadeed waxaan rabnaa inaan kuwa fikir lagula dagaalamo cadowga Soomaaliya waxa kamid ah jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa oo rabta inay lacag u bixiso oo dawladda u dhalan war annaku hadda doonaysiin reer Soomaaliya anu nin Soomaali aan ahay walaalkiin baan ahay sheekh baan ahay reer Djibouti baan ahay laakiin Soomaali baan ahay taladan siinaya waxa weeyaan gacantiinay ku jirtaa dawladnimo ka xorooba Nairobi ka xorooba Addis Ababa ka xorooba Djibouti ka xorooba Khartoum walaal baan nahay Djibouti waxaas waa siyaasadda walaal male ka xorooba Khartoum ka xorooba maxaan ku dhahdaa hatta Turkiga ka xorooba ay dawlad noqda dad xora oo gacantooda ay ku jirto arintaas waxaan jeclaaday inay dhahdo war cadowgeenu waa annaka isku cadowa annaka burburina Soomaaliya arinta labaad oo jeclahay waxa weeyaan waqtiga ay ugu degdegaya jamhuuriyadda Djibouti walaalayaal waxa ka socda isbedel la xad leh isbedelka waxay rabaan ragga dawladda haya inay dib u dhigaan amba inay baxsadaan ay halka hore sii tagaan oo isbedel Djibouti kama dhacay ay dhahdaan way hawaawinayaan isbedelku maalin hore waxaan idhi uu urayaa imika uu ka soo dhawaaday inuu isbedelku urayo waan taaban karnaa isbedelka waan taaban karnaa wuxuu inoo jiraa inta gacanteedu ay imika inoo jirto hadeeta uu soo durkay isbedelka soo durkay waxa maaragtay noqon doona dadka xaqiijinaya ma ahin siyaasiyiinta ma aha ragga siyaasadda ka dhilaysta ee madaxda ka ah ragga shaqo kuma leh isbedelka way ka faa'iideysan doonaan isbedelka waxa sameynaya waa dhalinyarada reer Djibouti oo saddex qol ah dhalinyarada dhex fadhida netka oo si fiican u shaqeynaya haween iyo ragbaba dhalinyaradaasi lambar 1 bay ka yihiin waxa lambar 2 ka dhalinyarada jaamacadda oo ogahay shaqada ay ku jiraan maanta inay tahay shaqo wanaagsan oo ay sahabeynayaan isnidaaminayaan kuwii hore uga baxay jaamacadda iyo kuwa jaamacadda dhigtaba waliga ayaa laha mukhaabaraad jaamacadda ka buuxi waliga ayaa laha sirdoon ka buuxi waliga ayaa laha kuwa jaamacadda ka shaqeeya wada sirdoon ka dhig waliga ayaa laha mishaaro u kordhi kuwa jaamacadda dhiga oo ka daba shaqeeynay waxaasi ma joojin karo isbedel dhacay wixii Khartoum ka dhacay Khartoum 32 jaamacadood ugu waaweyn dhammaan ragga xukumo dhan wuxuu ka dhigay madaxweynihii Umar al-Bashir wada mukhaabaraad haddana jaamacaddii baa soo baxday oo isbedelka keentay weeyaan marka qoladaasina waa qolada isbedelka horseedaysa waa dhalinyarada weeyaan oo qolada saddexaad waxa weeyaan waa dhalinyarada balbala shafka ku haysa dhulka laabta dhulka ku haysa Ali Sabiix dikhil tajoora ubukh gaajadu ay dubatay weeyaan dhalinyaradaasi waxay dhowrtaan uma hadhin markaas isbedelku intaas inoo jira haddaba isbedelka dhici doona si aanan looga weecan baan anu kelmadan u jeedaa kelmadan waxa weeyaan war Djibouti iyo dhibaato ku haya dadkeenu inay qaldamin waa run ninka la yiraahdo Cabdilaahi Cabdi ee u shaqeeya nidaamka ee qofku doon dila markuu fahmi la hadlay wuxuu yiri anu dumarka ma laaya laakiin ninka anu soo kacsan ugu galwana qaana waan ku naqaana saa wuxuu gashid shaki ma leh aniga hore kugu sheegay saad u gashay bulduqo saad u gashay dadkii kale ka dambeeyay waa la yaqaana laakiin su'aashu waxa weeyaan Cabdilaahi Cabdi waa gacan Cabdilaahi Cabdi maskaxda maaha maskaxdu haramuus bay fadhidaa dhibaatada wadanka waxa haya waa laba qof dad baa meelad waraaqadii soo qoray adigu Khadar iyo Ismaaciil oo sheekh maxaa u hadlaysaa bidad kuwa kale ma aragtid waxa ka dhigan tahay inaan ka sheekayo lugta iyo jirka gacanta iyo maaragtay shamiishka waxa maaha waa inaan ka hadlo maskaxda dalku halku ka bukaa dalku wuxuu ka jiran yahay oo ka bukaa waa haramuusna waxa fadhiya nin quraate ninkaas baa dalka dhibaatadiisa keena Cabdilaahi Cabdi wuxuu ku eri karayaa waraaqad yar wuxuu ku wasiirada wuxuu ku eriyaa waraaqad yar decision baa dhacdaa uu ka soo saaro aqalkiisa way soconayaan inaan la dagaalano dadka masaakiinta ah ee uu diray waxa ka fiican inaan maskaxda la dagaalano inaan maskaxda dalka burburinaysa la dagaalano okay dhalinyaradaas horta marka hore waxaan u sheegayaa inaan garab taaganahay inaan la jirno in aan iyakuna ay is-ilaaliyaan inay is-ilaaliyaan ay is-dhowraan laba shayba waa inaan iska ilaalino baydh waa inaan iska ilaalino fikrad baan qaadanay gobonimaan qaadanay horaan ugu soconno inaan meel kale in laga arko maaha waa kow arinta labaad waxa weeye inuu puusoolku inuu naga khaldamin halkeen ku soconnaa inaan naga khaldamin hadafkaan ku soconna waa xurriyad waa gobonimo waa walaalaynta dadka qofna cadow uma nihin reerna cadow uma nihin reer meel degan oo xaafad degan Djibouti kaba cadow loo maaha waa walaal dadku waxa weeyaan dadka matalay in Umar fadhiyo dhamaantood wuxuu ku soo doortaa ninka uu ka xun yahay buu reer walba ka soo qaada hadduu wuxuu fiican yahayna uu xumaada لأن ما هجاجين كرا وحني قف مارتي ما هجاي كرو مركز تاسي وامد تاسويه وحن جعلها يسبدل كواسودو يهي
qarqarka waxa keenaya baryada waxa keenaya cabsida waxa keenaya wararka aan hayno waxa weeyaan way kala shakisan yihiin waa la kala cabsooday waxa weeyaan si fiican buu dagaalku u socdaa dagaalkaasi waa inuu sii laba laamo uu sii saddex laamo oo ragga fanaaniinta ah oo qaarkood ay la soo hadleen ay yidhaahdeen waan bilaabaynaa ay bilaabaan culummada aamusane waan bilaabaynaa yidhi ay bilaabaan aqoon-yahanka aamusane waan bilaabaynaa yidhi ay bilaabaan waan bilaabaynaa sheekh waan soo soconnaa maaha ha la bilaabo tallaabadu ha bilaabata taasina intaas baan ka baxaya arrinta Ethiopia waxaan la hadlayaa laba qolo waxaan la hadlayaa bulshada degan gobolka shanaad ee loo yaqaano dowlad hooseedka Soomaalida war kelmad baan idin sheegaa walaalahayo Ethiopia isbedel baa ka socda dadna way tashanayaan dadna waa loo talin doonaa waxaan ognahay in maalin dhaweyto dadka Soomaalida gobolka Amxaarka looga yeeray ina la yiri heshiis baan naga rabnaa ina heshiino oromadu in heshiis bay naga rabtaa Amxaarku heshiis buu naga rabaa Tigreegu heshiis buu naga rabaa annaku maxaan rabnaa su'aasha baa muhiima ilaahay wuxuu in siiyay laba arrimood horaan inuu sheegay premier ma arrinta koobaad ee Soomaalida ilaahay siiyay wax weeyaan dhulka ugu weyn ee oromo ku xigta inikaale laba dhulka xuduudda badda la saaxiibo dhanna inikaale marka Eritrea Tigray laga yimaado inta kale Anfar laga yimaado inta kale too dhan annakaale Soomaali baale Soomaalidu waxa dhabarka ku haysiin waxa tihiin 35 malyan oo bini aadan oo Soomaaliya cabsi iyo argagax inay qaldata maaha dawlad la'aanta Soomaaliya ka jirta iyo dacfiga Djibouti ka jira inuu naga cabsiyo maaha annika ugu fursad weyn maanta Ethiopia afquraad ku adashiin diin quraad leedihiin waxa muhiima Ethiopia way kala soconaysaa haday kala socon weydana lama kala adkaanayo laakiin inaad noqon dad la isticmaalo waan ka digayaa dadka Ethiopia xukuma walaalkay Mustafa waxaan ku leeyahay nin geesiya tahay adiga iyo madaxweyne ku-xigeenka nin aqli badan baa tahay waxaad iska ilaalisaa in aad ku dhacdiin meel lagu wado inaad ku dhacdaan inaad kala raacdaan Amxaar iyo Tigray inaad kala raacdaan Amxaar iyo Oromo inaad noqotaan dad lagu shaqaysto waa inaan yeelano ujeedooyin Soomaalinimo maxay dadkeenu rabaan caasimad baa inaga maqan magaciiga la dhahdo Diridhabe waa inaad Diridhabe la soo cisho Diridhabe Soomaali baale Diridhabe Soomaali baale waa in la soo cisho waa lagala orday meel kale la geeyay caasimada Soomaalida ee gobolka shanaad waa Diridhabe haddaan sidaa ku dagaalami weyno waa problem anfarta oromada in la degan waa walaaliheen oromadu waa dad walaal aan oo wada degannahay laakiin marka laga soo bilaabo min Hayle Silaase min Minilik waxa loo yaqaanay Diridhabe gurguraana Ciisa amba Ciisana gurgura waxa lahaa dad baa lahaa dadkii lahaa baa le wayna lahaan doonaan ilaa qiyaamaha dadka ku meersan Diridhabana waa wada Soomaali weeyaan hatta kuwa afka oromada ku hadla waa Soomaali weeyaan cabsi baa ka sheegtay Soomaali ahayn marka waxa la rabaa dagaalkeenu inuu noqdo dagaal istiraatiijiya oo uu noqon dagaal yar oo meelaha yar ee soke laga dagaalamo walaalayaal waxa weeyaan Ethiopia waxay ku socotaa labada sinooriyad inay furfuranto lagu kala tago amba inay ahaato dawlad isku xidhan laakiin daciifa wax ka xoog badan ma jiro ciidamada gobolada qaar la wareegay bani Shangool ciidan baa ka taliya mukhaabaraad gobolada koonfurta ciidan baa ka taliya inta kaleetana itaalkoogu ma badno marka sidaa daraaddeed waxaan rabnaa inaad taana la fahmo oo dadka Soomaalidu ay fahmaan istiraatiijiyada gobolkaas uu leeyahay aad baad u mahadsantihiin waan salaamayaa waxaan ku ducaysanaynaa inuu Ilaahay sidaan ka fiicannahay si ka fiican naga dhigo waan mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh